أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعشر كيني ظهاردا قيبتيسي تبنات حيلك أي أركت هوينتا uurka leh sida badan dhiigga caadada xeelka waa joogsadaa marka ay haweeney uur qaado. Imaam Axmed Allah u naxariistay wuxuu yiri dumarku waxay ku ogaan karaan inay uur leeyihiin inuu ka joogsado dhiigooda xeelka haddii ay haweentu uurka leh aragto dhiig wax yar ka hor dhalmada 2 ama 3 maalmood ay la socoto fool, markaas waa dhiig nifaas ah dhiigga dhalmada. Haddiise la arko dhiigga dhalmadeeda ka hor ama wax yar ka hor dhalmada ha yeeshee ayaan la socon fool, markaas ma ahan nifaas dhiigga dhalmada. Xaaladdu marka ay sidan tahay, su'aasha isweydiinta leh waa in loo arkayo dhiigga xeedka ahaan oo sidaas uu ku qaadanayo dhammaan axkaamta xeelka mise may. Waxaa jira khilaaf xagga culimada dhexdooda ah oo arrinkan la xiriira. Qolka saxiixa ah hase ahaatee waxa weeye nooca dhiigga inuu yahay dhiigga xeedka ah. Waxaa arrintan asaas u ah qodobka sharciga ah ee leh dhiigga haweenka ku dhaca waa dhiig caado ah xeelka marba haddii aanay jirin sabab keenaysa inaan laga soo qaadin dhiig caado ah xeelka. Lama hayo wax ku yaal kitaabka Alle iyo sunnada Nabiga sallallahu alayhi wasallam oo cadeynaya in haweenta uurka leh uusan ku dhicin dhiig caado xeelka. Qolkan waxaa qaba Imaam Maalik, Imaam Shaafici, waana sida uu doortay oo doorbiday diin ahaan Sheikhul Islaam Ibn Taymiyah. Waxaana la soo wariyay in Imaam Axmed isna qaatay qolkan waa dambe. Sidaas awgeed dhammaan qodobada sharciga ee la xiriira dhiigga caadada xeelka baa lagu qaadayaa xeedka oo hesha haweeney uur leh marka laga reebo 2 arrimood. Casharkeeni intaas ha inoo joogo insha Allah.